Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Welcome to my channel. Magacaygu waa Deeq Maxamed. Maanta waxaan idiin wadaa sida loo sameeyo banana bread. Insha Allah markaan isla fiirsano. Haddeer waxaan rabaa inaan ku shubo hal koob oo sokor ah. Waa banana breadkaan sameynayo ma ahan mid weyn. Banana bread wuxuu ku fiican yahay quraac ahaan oo cuni kartaa haddaa rabtid. Waxaa u sameysan kartaa casri ahaan. Kastar ku cuni kartaa sida doorshada oo kale. waxaa u baahan tahay 2 xabo ukun ah iyo waxaa kaloo u baahan tahay 1 koob oo saliid ah ama suugo oo isticmaali kartaa marka hadda waxaa u baahan tahay inaad isku qastid isku daraacsiisid suuga aan isticmaalayo waxaa waaye kan hindida ghee dhaha marka si fiican isku raacsiisid oo isku wada raaco ilmaha xataa waa la sii karaayo waayo sokor badan ma lahan cupcake ahaan u samey kartaa shukulaato ku dari kartaa waxaa ku dari kartaa nuts caadi ku dari kartaa walnut ama pecan ku dari kartaa had inta waxaan ku haystaa 4 xabo moos oo soo jijibiyay ama waa shiidi kartaa haddaa diidaysid jabiska laakiin u maleynayo in u baahan tahay mooska biseel yahay waxaa ku dareysaa 1 koob midkan hadda caagan isticmaalayo waxaa waaye nus koobka caagad wax lagu cabirtaa badana isticmaala aan kaasan ka jeclaa ii fudud yahay marka si fiican u qas sida isku wada raaco waxaad u baahan tahay inuu is wada raaco marka hadda waxaan ku daray 1 qaando oo waxa ay vanilla hadda rabtid powderka isticmaali kartaa adiga ugu xiran tahay marka hadda waxaan ku shubay 1 koob oo midka weynka oo bur waxaan raacsiiyay 3 koob oo midka yaryarka ee bur ah baakana hadda wuu diyaarsan yahay marka waxaa u baahan tahay inaad ku dhamaystirtid baking powder iyo baking soda haddii waxaa u kaloon u baahan tahay inaad ku darsatid spices aday kugu xiran tahay laakiin arab spiceska is optional waa iska dhaafi kartaa marka hadda waxaan ku dhamaystiraa 1 qaando yar oo baking powder ah iyo 1 qaando yar oo baking soda kaasa marka waxaan yeelo isku qasay ad marka waxaan ku dhameystiray walnut iyo pecan waxa u baahan tahay inaad jartid kan waa optional waa iska dhaafi kartaa haddaa rabtid haddaa allergy ku qabtid uma baahnid haddaa leedahay ilmo yaryaraan siina uma baahnid inaad ku dartid marka waxaa sameysaa in isku qastaado israaca haddii kale hoos oo kaa fadhiisina markaa birta ku shubtid biswa hadda wuu ii diyaarsan yahay waxaan u baahanahay inaan birta soo diyaarsado marka haddeer waxaa u baahan tahay intaa wax isku qasaysid ma aragta inaan foornada sii shidid oo dabkeeda geysid 180 waayo markaa dhammaysid waxaa u baahan tahay inaa hore ka gelisid 45 minute gudihiisa kusoo bislaano waa kana
marka waxaan rajeynaa haddaa ka hesheen inaad samaysataan like saara subscribe idhaha notificationkana shita waa insha allah waa inuu next videogeena caafimaadna ku cuna haddaa more video u baahan tihiin waxaa fiirsan kartaa janaalkeyga waxaa fiirsan kartaa sida loo sameeyo jalaato biskuut tiramisu aday kugu xiran tahay insha allah khayra idiin rajeynaa bye bye